ka muuqda waxa la sheegayaa in dhulkeenni deegaankeenni xeebta gobolkii Salal ay abaari ka jirto abaar baahsan baa jirta biyo la'aan baa jirta calaf la'aan xoolihiya ayaa jirta cunto yaraan dadkii baa jira marka maanta waa maalinteeni dagaalka dhulka la difaacayo qaybteeni baa la gaaray oo ah in dadka loo gurmado in dhaqaaleyna uu gurmano inagu intaas la naga rabaa ninka sharafteeni iyo karaamadeenni iyo haybadeeni difaacaya iyo ciyaalkeeni iyo dumarkeeni iyo ehelkeeni qaraabadeeni deegaankeeni difaacay wuxuu inaga rabaa inaan garab joogsano wuxuu inaga rabaa cunto wuxuu inaga rabaa dawo wuxuu inaga rabaa biyo wuxuu inaga rabaa shidaal wuxuu inaga rabaa kaarkii loo goynayo cadaabta ee reerka jaarka loo goynayo ku soo duulayo dhulkeena kaarkii loo goynayo buu naga rabaa inuu ka dhamaan kaarashaas waxa soo dhan baa la naga rabaa dadka abaarta ku dhacday biyo la'aanta ku dhacday calaf la'aanta raashinka dhulkeeni tala sheegayo dadku ay sheegayaan abaar xun baa ka dhacday inaan gurmanana waa la naga rabaa iyaa laga rabaa deegaanka la naga rabaa cid kale oo noo imanaysa ma jirto dadka gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga maanta waxa la naga rabaa inaan dadkeenu gurmo shicib iyo dawladba gurmad kale oo sugayaan cid kale u soo gurmanaysa ma jirto ninkaas wuxuu nagu leeyahay abaal difaacaya dadkeeni ee dhufayska ku jira ehelkeeni iyo qaraabadeeni iyo sharafteeni iyo karaamadeenni iyo haybadeeni u difaacaya wuxuu ka difaacayaa nin aan ogoleyn jiritaankeenna oo na ogoleyn deegaankeenna oo inaga duulimaad inagu ah oo haba yaraatay aan ogoleyn jiritaanka beesha Ciise ee Great Nation 77 noqoto ayuu ka xun yahay inuu ogoleynba jiritaankeeda waa jiritaan waxa ay nagu la dagaalamaya reer Boorama iyo reer Boon iyo reer Qulujeed saddexdaas ba soo raacay weeyaan waxa doonayeen inay dhulkeena yimaadaan weyne qaarna way joogaan waliba sida ama cadaalika qaar baa inala jooga marka dadkan invaderska ah dadka hor jooga ee buurihii ku hor jooga Qulujeed baashi maxay buurti libaxlay iyo habaas ku hor jooga waxay u baahan yihiin inaguna inaan gacan qabano waxay u baahan yihiin raashin waxay u baahan yihiin biyi waxay u baahan yihiin wixii lagu soomi lahaa waxay u baahan yihiin dawadii waxay u baahan yihiin shidaalkii wax kasto bil aadanku markay dhul difaacayaan ay u baahan yihiin iyo u baahan yihiin marka inaga ayaa la naga rabaa marka jeebka in gacanta la galiyo kuweena dabada jooga in la qorsheeyo oo sidii lacagta loo gaarsiin lahaa dhaqaalaha loo gaarsiin lahaa ka wada shaqeyno iyo kuwa gudaha jooga iyo dawlad shicib iyo dawladba inaan u gurmano way dadkeenaas hawl bay naga hayaan iyagu xabad bay u bareereenba waxay hor joogaan invaderski kuwii dhulkeena ku soo duulay ee waliba sheeganay ee jiritaankeenna nacab bay hor joogaan oo u diideen inay ka soo dhaadhacaan buuraha halka buuraha waa kuwa saaran iyagoo Boon iyo Qulujeed jooga qoriyaasid ninkastoo qoladaasba de waa aniga abtiyaashii waliba kuwa ninkii qoriyar lacag laba qori buu iibsanaya uleeya Ciise ku dilaya marka calool xumada halka taala way idin muuqata inay ka qarsoon tahay ma jirto waxaad ka aragteen xeerkii Ciise markii lagu dhawaaqay xeerkii wuxuu ahaa iskaan hore waan ugu sheegay iskaan reer walba calooshiisa lagu arko wixii ku jira xumaanta ku jirta xumaantu inoo qabo xasadka ku jira waxa ku jira oo dhan halkaas ka daawan abteena xasad wixii ku jiray waa daawateen waa ku ilaahay sariix yimid iyagoo guuray waa ku halka yimid ogeydeen wixii afkooda ka soo baxayna deena aanu kama sheekeyn karo waa Ramadaan kama sheekeyn karayno wixii afkooda ka soo baxay waxay xalaaleysteen dad nool dhiigooda ayay dhaan waa xalaal wax kale iska dhaaf heerkaas ay gaadheen marka ragga difaacayana waa in la garab joogsada raggaas naga difaacaya dhulkeena difaacaya ee ka saaraya ka fiiqaya waxaan rajaynaynaa in dhulkeena ka fiiqno oon kala yeelano xuduud aan la soo dhaafin silig inaan yeelana rajaynaya aan soo dhaafin oo la isku talaabin oo wax la kala iibsan oo businessna dhexmarin oo xabad saamuusa laga iibsan wax kale iska dhaaf way soo guurayaan wayna dul degayaan invaders weeyi wayna dul noolaanayaan dukaan bay ka dul furanayaan maqaayad bay ka dul furanayaan farmasi bay ka dul furanayaan saamuusa ku dul iibinayaan te waxa sinayna dhicin baa doonaynaa waxaan doonaynaa nin aan ogoleyn noloshaada oo ka xun inaad noolaato oo jiritaankaaga nacab inuu business ka dhex sameeyo wax dhici kara ma taana waan sheegaynaa waxaan rabnaa tolkayo Ciise weyne meel kasto dunida joogaanba
نقولوا دكان كاغا كيبسو ومقاعد دادا كيبسو وبابور كاغا راع وسامبوسا دادا كيبسو وجادك كيبسو وريركا هو دوان هو تلابين هبا يراتي وايو نكر مساد حقا يبسني عدو بكو ياي جريتان كاغو كحو ياي أنا واحد حسوستا حافظان دقنان شرني شبوتي بريغان دالين يرادها أردقاها وده سكول كونفور كدغان جري markaan imaado waxaan arki jiray school waxaan arki jiray dukaan la yiraahdo xeeb jiray iyo oran jiray marka dukaanka saddex dukaan oo kale way ku agiyaalan waxa xaafada la yiraahdo jagabadho marka waxaan oran jiray dukaankan Soomaaliga wax ka iibsada hablaha meesha maray dukaanadaas saf ugu jirayeen Carabta marka soo oran jiray kan ka iibsada Soomaaliga waxaad uga iibsanaysan Carabka Soomaaliga wax ka iibsada xeeb jiray oo dukaanka xeeb jiray la oran jiray waa kuwii da kuwa qoriyaha noo haystay kuwa qoriyaha haystay ee laga kari laayay tolkay waa iyagi wixii halka ka shaqeysan jiray waxaan u iibiyay deynama soo gaadhayaan laakiin way aan jabay waaf ku xooglayaal waxbaan dilay waxbaan gowracnay meed ba halkan ay ku faanayaan halkan intuu yimaado meed ku faanaya meed baan inaa la cisho waraaba cunay iyo ku dagaaga cunay waxaas waday lying waa liars waa beenalayaal awood waxay u leeyihiin afku xooglayaal weeyaa been ay sheegan way itaal kale ma awood kale ma isagana waxba kuma soo karaan ciisana waxba kuma soo karaan laakiin calooshoodan arkayna marka tolkay waxaan leeyahay maanta waa la sugaya maalin kala maaha today waa inaan dhaqaalaha la bixiyo waa in dadka loo gurmado noloshooda kor loo qaado kuwa ay difaacayaan waa inaan garab joogna wax kasta u baahan yihiin waa inaan u geynaa kuwa halka buurta ku xidhay qolooyinkii ka yimid Debon iyo bahashi iyo qulujeed iyo boorama ka soo qaxay barakacayaashii halka ku hor jooga inta kale ee dhulkana deganay inay ka fiiqaan ma rajeynayna oo inaga fiiqaan oo inala joogin waayo uma qalmaan inaan wada noolaano oo noo soo dhawaadaan uma qalmaan haba yaraatay odayaashii la saylac baan tagay garka waa weynaa markii ugaaskeena la caleema saarayay saylac safka hore waa kuwa fadhiya maxaa la yiraahdaa dawal odaga la yiraahdo halka hore waa ka safka hore fadhiya dadkii meesha ka qadeeyay ee ka quraacday ee ka casheeyeen 2010 weey ee raashinkana sii qaatay baaqigana iyaga qaatay isagoo iska soo noqday Djibouti yimaadeen dadkii gurtay weeyaan raashinkan halka ka gurtay maantana waxay leeyihiin saylac baa tagaynaa oo dadkii u leeyahay saylac baan tagaynaa saylac ma adiga leh maxaa saylac ka soo dooni ma iman karaysaan xuduud baan kala samaysanayna si aynaan iskugu qaldamin abtiyo iyo inagu waa inaan xuduud kala qoranaa xuduud waa inaan kala joognaa waa in wax la isku ogyahay jirtaa maamulka Hargeysa ka jirana waa inuu ogyahay wax ka hooseeya ma jiro wada deganaasho iyo wada noolaasho iyo isku soo dhawaad taasi ma dhacayso haba yaraatay nim aan ogolayn jiritaankaaga heshiis lama geli kartid waa inuu ogolaada horta inaad jirto waa inuu ogolaada oo cadeeya deegaanka adigu aad leedahay waa inuu shanta farood badhigaa haddii kale ma jirto wax heshiis oo la galayo iyo wax dad business dhex maraya iyo dad dhex maraya iyo baayac mushtaris dhex maraya wax dhici kara ma haba yaraatay taasina dhici mayso Ramadan Kareem Ramadan wanaagsan waxaan idin rajaynayaa inaad guuleysataan wadaadadan wax weydiin la su'aal baan rabaa inaan wadaadada weydiiyo diinta anigu waa laga badiya anigu inta salaada uma naqaana waxa jiray Buluzari qolo la yiraahdo oo dalka Morocco jabhad ka goday aad u xoog weyneed aad u xoog badnayd oo Buluzari la oran jiray waxay la dagaalamaysaa dalka Masar waxaan u jeedaa Morocco kadibna dawlad bay ku dhawaaqeen sida isagu dawladda ay ugu dhawaaqeen Hargeysa oo kale ayay dawlad ku dhawaaqeen marka Ramadan baa soo gashay iyadoo ciidamadii Moroccan kula dagaalamayaan marka boqor Xasan kii labaad ayaa wuxuu ka dhaafay Ramadaanti barigaas marka kuwa inaga difaacaya maanta ee buuraha hoostooda jooga ee qolada invaderska difaacaya afku xooglayaashani qoryaha la sare jooga inaga difaac dhulkeena inay yimaadaan oo sharafteena iyo haybadeena iyo karaamadeenna meel kaga dhacaan oo qoysaskeena u soo dhaadhacaan oo guryaheena gubaan kuwan hor jooga waxaan lahaa hadii laga dhaafo ka warraba Ramadaanta oo qofka ul amriga aniga ul amriga waxa ilaa muuqa waa ugaaska umba maanta ciise ul amri oo ugaasku ku dhawaaqo inuu ka dhaafay Ramadaantiiba hadda dambitaan Allah iga cafiyo laakiin sidii Morocco oo kale boqorkaas u sameeyay in la sameeyana waan jeclaan lahaa oo la yiraahdo Ramadan ma lihidin idinku waayo aniga baan difaacaysan oo
qofku markuu gurigiisa difaacayo ehelkiisa difaacayo qaraabadiisa difaacayo u deegaankiisa difaacayo de waajib bay ku tahay mar haday waajib kugu tahay ina soonto ma waajib bay ku tahay idan adigu wuxuu dhulkiisa buu difaacayaa nin sheekha ila soo hadlay xalay buu la soo hadlay wuxuu yiri waxaan arkay adigoo lagu sido oo cadaabta lagu sii wado dadka dhan ku arkayaan oo lagu cadaabayo ayaan arkayaa buu abti waxaan ku leeyahay islaan aad u been badan oo inta dibadda joogtaba aan weligeed maxamed runa sheegin ayaa odageedii ku tiri waan riyooday markaasuu yiri maxaad ku riyootay markaasay tiri adigoo magaalada madax ka aan ku riyooday wuxuu yiri adigoo soo jeedaan runba sheegi jirin waaba adigoo urde oo seexday marka waxa alla wax ka jira ma jirto aniga la cadaabay maayo dadkayga afkooda baan ku hadlaya ninkii soo duulay baa la cadaabaya takale wuxuu yiri kan soo duulay iyo kan difaacaya labadaba waa ahlu naar ma waa ahlu janno ka dhulkiisa iyo ciidiisa iyo dadkiisa iyo sharaftiisa iyo qoyskiisa iyo ehelkiisa iyo karaamadiisa difaacay waa ahlu janno kan qulujeed iyo boon iyo ka soo duulay maxay maashi boon iyo qulujeed iyo boorma ka soo duulay dila kaas ahlu naar hadoo la ku dhinto laakiin kan halkan joogay ee deegaanka iskale waa ahlu janno taa cid ba weydiin maayo sheekh iyo shariif midna weydiin maayo ilaahay baa quraankiisa ku sheegay inaad isdifaacdo oo qoyskaaga difaacdo oo ehelkaaga difaacdo oo qaraabadaada difaacdo oo dadkaaga difaacdo oo deegaankaaga difaacdo ilaahay baa quraan ku sheegay waa ahlu janno ninkaas ka soo duulayna waa ahlu naar marka waa la garanaya ninka cadaabti tagaaya tigirka loo goynayo iyo ninka jannada tagaya waa la garanaya waa ahlu janno ciise dhulkiisa buu difaacaya ka xalay maala joogi waa ahlu janno ka buurta libaxlay hoosteeda joogana waa ahlu janno kan baashi lugaya ka dagaalamayo hulka iyo dhulka ka dagaalamayo waa ahlu janno way deegaankooda dhulkooda iyo istaadooda iyo awiyashad ka soo jeedeen ayuu difaacaya waa ahlu janno laakiin kan dila iyo boorama iyo tulli iyo maxay la yiraahdaa jarraa horate iyo dhulka ka yimiday kaas ahlu naar diintu saasay dhigaysaa beenna ka sheeganabti aga sheegan anigu cadaab leegeyn maayo run baan ka hadlaa been kama hadlo abtiyaashana ma caayo kalmad caaye ma idhaahda waxaan idhaahdaa dhulkan waad ku soo duusheen invaders baa tihiin dhulkiina jooga laakiin aflagaado